بعد السلام حفلة أنا waxay daaran tahay mahad celin aynu u mahad celinayno dadkii bulshada Caabud Waaq wax u qabtay wax qabadkaas oo ah inay degmada Caabud Waaq ay yeelatay markii ugu horeysay taariikhda golo deegaan oo doorasho ku yimaada taasuna waxay badashay muddo dheer oo ay maamuladu ku imaan jireen qaab magacaabis ah waxay ka dhigan tahay bulshada gudaheedii inuu ka yimaado isla xisaabtan wixii ay rabteen ay keensato wixii ay rabtana wixii aysan rabin ay iska diido annagu insha Allah taala waxaan ku shaqayn doonaa aragtida iyo rabitaanka bulshada insha Allah taala sidoo kale waxaan ilaalin doonaa qawaaniinta dawliga ee u degsan dawlad goboleedka Galmudug iyo tan qaranka si gaar ah bulshada degmada Caabud Waaq waxaan uga codsanayaa oo intiinaan ay ka mid yihiin iyo inta inaga maqan marka koobaad inaad horta noo ducaysaan tiimkanaga degmada loo doortay marka labaadna inaad nala shaqaysaan oo na garab istaagtaan sababta waxa weeye waxaan u diyaarsanahay inaan idin shaqayno inaad nala xisaabtantaan xaq baad noogu leedihiin wixii aan ka gaabino idinkuna waxaan rabnaa inaan idin kula xisaabtanno ka bulsho ahaan wixii aan idin kaga baahano oo garab istaaga oo aad ka gaabisaan haddii alla yiraahdo mahad celinta aan u sameynayno wasiirka iyo tiimkiisu waxay ka dhigan tahay bulshadu dadku hadduu wax qabto waa loo mahad celiyaa wuxuuna ka qaadi doonaa dhiiranaan inuu waxaas wax ka sii duwan uu sameeyo oo meeshii meel ka sii sarreyso oo qofkii gaaro taasna insha Allah taala waxaan mar walba annagoo ilaahay kaashanayna aan ku talagaleynaa degmadeena qaabka ay u dhisan tahay iyo qaabka amnigeedu yahay iyo qaabka waxbarashadeedu ay tahay iyo qaabka caafimaadkeedu yahay mid walba inaan wax ka bedelno muddo gaaban aad arki doontaan Caabud Waaq cagaaran Caabud Waaq cagaaran inaad arki doontaan hadduu alla idmo dadkeedu isjecel yahay nabadgelyo iyo baraare heshay horumar gaadhay dadku ay ku tartamayaan wax qabad aysan ku tartamin xumaanta hadduu Ilaahay yiraahdo waxa ogtiin golaha deegaanka dhismihiisa waxa jiray tabashooyinka imaanayay bulshada qaybaheeda dad ka mid ah ama ha noqoto jifooyin ama ha noqoto ashqaas kulli waxaan u diyaarsanahay inaan qof walba meeshiisa ugu tagno jifo walba inaan meesheeda ugu tagno inaan la fariisano inaan xalkeeda raadino hadduu alla idmo waxay nagu qaadanayso tabashadu marna way annaga naga horeysay oo waxay la facahayd siyaasad naga sarreysa annaga oo ah ama Galmudug xageeda jirta ama dad naga sarreeyay ay hayeen maadaama annaga hadda mas'uuliyadii nagu soo wareegtay waa inaan u istaagnaan u diyaarsanahay hadduu alla idmo waana la fariisanaynaa dadka waana xalinaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo annagoo u marayna dariiqada ugu sahlan hadduu Ilaahay yiraahdo oo wada hadalka ah intaas waxa sii dheer dadku mas'uuliyad way qaybsan tahay annaga kulli waa intaan sheegay oo xaq waxana loogu leeyahay wixina loo dhaariyay inaan ka soo baxno amaanada dadkana aan ilaalino una ilaalino si ay maaragtay waxaan sameyn doonaa hadduu alla idmo waxaan u dibdhiganayaa xafladda caleemasaarka hadduu alla idmo laakiin hadda waxaan ku soo koobayaa munaasabadan maadaama ay mahad celinta wasiirka ahayd inaan u mahad celino wasiirka iyo tiimkiisa oo naga ambabaxaya oo degmooyin kalena golayaal deegaan oo laga dhisay oo gobolka ay jiraan